السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صاحبتكم حنا جنال كينا soo noqod wanaagsan. Afrika waa qaarad uu eeba ugu deeqay hanti iyo kheyraad aad u badan sida saliidda cayriinka ah, macdanta noocyadeeda kala duwan iyo dahabka kuwaasi oo dhaqaajiya dhaqaalaha caalamka. Iyada oo ay Afrika hantida inta la eg taalo, haddana inta badan dadku ku nool qaaradan ayaa ku nool meel ka hooseysa heerka saboolnimada. Marka uu qof maqlaa madaxda Afrika, hal aragti oo maskaxda qofkaas ku soo dhacda ayaa ah musuqmaasuq iyo wax isdabamarin. laaluushka iyo musuqmaasuqa ayaa ahaa dhaqan joogto ah oo ay ku dhaqmaan inta badan madaxda Afrikaanka ah. Laakiin sax ma tahay in la yiraahdo dhammaan madaxda Afrika waa musuqmaasuqayaal ama laaluush qaatayaal? Waa run in inta badan madaxweynayaasha Afrikaanka ah ay hantidooda ugu badan heleen muddadii ay hoggaanka u hayeen dalalkooda. Laakiin qaar kale ayaa si daacadnimo ah u kasbaday hantidooda ka hor iyo inta ay madaxda ka ahaayeen wadamadooda. waxay ahaataba waxaan maanta rabaa inaan idin la wadaago madaxda ugu taajirsan Afrika, waana kuwan liiskooda ee ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Paul Kagame oo ah madaxweynaha dalka Rwanda waa shakhsiga shanaad ee liiskeena madaxda ugu hantida badan Afrika, waana mid ka mid ah madaxweynayaasha ugu caansan Afrika. Paul Kagame ayaa hantidiisa lagu qiyaasay $510 milyan isagoona talada dalka hayay tan iyo bishii Maaj 2000. Waana madaxweynihii afraad ee dalka Rwanda. Ka hor intii aanu xilka madaxweynenimada qaban, waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka gaashaandhigga ee Rwanda. Waxa uu siyaasadda ku jiray in ka badan 30 sano, waxa uuna kasbaday hanti aad u badan inta uu ku jiray mihnadan siyaasadda. Kagame waxa uu qayb weyn ku lahaa soo afjaridda xasuuqii ka dhacay Rwanda 1994 una dhaxeeyay labada qowmiyadood ee Hutu iyo Tutsi. Tan iyo markii uu talada dalka la wareegay, waxa uu dalka ka dhigay mid ammaan ah, isagoo dib u dhis weyn ku sameeyay dhammaan waddanka. Isaga oo dalkiisa u horseedaya barwaaqo, Kagame waxa uu awooday inuu hanti badan u urursado naftiisa. Paul Kagame waxa uu maalgashi ku sameystay ku dhawaad dhammaan qaybaha dhaqaalaha dalka Rwanda, halka qoyskiisuna ay leeyihiin oo ay maamulaan Crystal Ventures oo ah shirkad leh hanti lagu qiimeeyay ku dhawaad $1 bilyan. Uhuru Kenyatta oo ah madaxweynaha dalka Kenya waa madaxweynaha afraad ee liiskeena madaxda ugu hantida badan Afrika. Madaxweyne Kenyatta oo ah madaxweynaha afraad ee Kenya ayaa xafiiska madaxtooyada la wareegay tan iyo 2013. ka hor inta uu soo noqon madaxweyne, waxa uu dalka ka soo noqday wasiirka dawladaha hoose 2001 ilaa 2002. haddii uusan ahayn madaxweynaha ugu qanisan Afrika, waxaa hubaal ah inuu yahay madaxweynaha ugu taajirsan bariga Afrika, iyadoo hantidiisa lagu qiyaasay $500 milyan. Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu saamiyo ku leeyahay shirkado badan oo ka shaqeeya bangiyada, dhismaha, isgaarsiinta iyo hoteelada. qofka saddexaad ee liiskan ku jira waa madaxweynaha dalka Equatorial Guinea. Madaxweyne Teodoro ayaana ah shakhsiga saddexaad ee ugu qanisan madaxda Afrika, waxaana lagu qiyaasay hantidiisa $600 milyan. Hogaamiyahan ayaa muddo 34 sano ah ka talinayay dalka Equatorial Guinea kadib afgembi uu adeerkii xilka kaga tuuray sanadkii 1979. waana mid ka mid ah madaxdii ugu muddada dheereed ee Afrika. qayb badan oo hantidiisa ka mid ah ayaa la aaminsan yahay inuu ku helay bililoqo iyo dhac uu u geystay qarankan hodanka ku ah shidaalka. Equatorial Guinea waa waddan weli la ildaran faqri aad u daran oo in ka badan kala bar muwaadiniintiisu ay ku nool yihiin meel ka hooseysa heerka saboolnimada. Madaxweyne Teodoro ayaa lagu eedeeyaa musuqmaasuq iyo ku tagrifal awoodeed. isaga iyo qoyskiisana waxay dalka iyo dibaddiisaba ku leeyihiin hanti badan iyo maalgashiyo malaayiin gaaraya. Ali Bongo Ondimba oo ah madaxweynaha dalka Gabon ayaa kaalinta labaad kaga jira liiska madaxweynayaasha Afrika ugu taajirsan sanadkan 2022. waxa uu noqday madaxweynaha Gabon sanadkii 2009 waxaana hantidiisa lagu qiyaasay $1 bilyan. waxa uu qabtay jagada madaxtinimada dalka kadib geeridii ku timid aabihiis. intii uu aabihiis xilka hayay, waxa uu soo qabtay jagooyin sarsare oo dawladeed, taas oo uu ka heli jiray dhaqaale aad u badan. Gabon waxa ay kaalinta shanaad kaga jirtaa wax soo saarka saliidda ceyriinka ah ee Afrika. sidaas awgeed, waddanku waxa uu inta badan ku tiirsan yahay dhoofinta saliidda. sidaas oo ay tahay, ayaa weli waddanka waxa uu la daalaa faqri iyo saboolnimo. Ali Ondimba waxa uu ka dhashay qoys qani ah, waxa uu wax ku bartay dugsi gaar loo leeyahay oo ku yaala France ka hor inta aanu ku biirin jaamacadda Paris. kadib waxa uu shahaadada dhakhtarnimada ka qaatay jaamacadda Wuhan ee dalka Shiinaha.
boqor Mohammed waa hogaamiyaha hadda ka taliya dalka Morocco waana madaxweynaha ugu qanisan Afrika waxaana hantidiisa lagu qiyaasaa 5.7 bilyan oo dollar. waxa uu la wareegay talada wadanka sanadkii 1999 kadib dhimashadii aabihiis oo ahaa boqorka talada hayay. boqor Mohammed waxa uu ka mid yahay madaxda ugu aqoonta badan madaxweynayaasha dalalka Afrika isagoo shahaadooyin kala duwan ka qaatay jaamacado iyo hay'ado magac iyo maamuus ku leh dunida. markii uu ku fariistay kursiga talada dalka Morocco waxa uu u ballan qaaday muwaadiniinta Marookaanka ah inuu wax badan ka qaban doono faqriga iyo musuqmaasuqa dalka iyo sidoo kale inuu dhimi doono heerka shaqo la'aanta. nasiib wanaag ballanqaadidiisii qaybo ka mid ah waa uu fuliyay wax badan ayuuna wadanka ka bedelay waana sababta qaar ka mid ah Marookaanka ay ula baxeen difaaca masaakiinta. liiskan shanta madaxweyne ee ugu qanisan qaaradda Afrika ayaa muujinaya in inta badan madaxweynayaasha Afrika ee hodanka ah hantida ku kasbadeen sifo aan sharci ahayn. sidoo kale waxa ay tusaysaa sababta madaxda Afrikaanka ah ay xukunka u jecel yihiin in ay tahay helidda hanti badan. daawadayaal mawduuceena maanta intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa intaan ku kulmayna muuqaal noocan oo kale ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.